بسم الله الرحمن الرحيم مثلا مقعدة وحلي هذا نوبة هو يداي سيدا داي كسار سنتهاي كلي وركيدا والله هيا قال هذا لندن بانشوغي وين أنا مكشيك هي برطبة سبب النسول كيبات يا شيء وشيء لغا مهرمانا إلا قشيك هي محاكيني سيدا سوغانت waa sharci u leedahay in aan la iska odhanay ay sababa keenaan marka la nabadganayo inaanu saaxiib nahay baa habeenkii dambe wuxuu ii sheegay annagu iska qayli jirro farish fadhiina ayuu ii sheegay inay jirto islaam baa waddanka joogta magaalada London waxay dhashay 4 wiil bay dhashay 4 wiil iyada ku tacabtay waxa la wixii ay xoolahaysay waxa la wixii ay xoog haysay inamadaasi galisi martii aanu aabe jirin iyada noqotay aabe iyo hooyo labadaba wadaadkii dhalay way kala tageen markaa wadkii iyadu ku soo haray marka caruurtii afatiinan mid walba magacay bixiso magacyo ay u hanweyn tahay oo ay jeceshay sidaa noqdaan bay u bixisay mid waxay u bixisay guuleed mid waxay u bixisay liibaan mid waxay u bixisay mahad mid waxay u bixisay asad yani waa magacyo ay hooyadu jeceshahay inamadeedu inay sidaa noqdaan marka waxba kalamay hadhin way korisay waxbay bartay cimrigeedii iyo quruxdeedii iyo tacabkeedii waxay gelisay inamada ilaa ay ku dulgabowday waa fariinanoo mid waliba markuu maalintii 23 jir gaaray kii u horreeyey ayuu kadinka ka baxay dibna uguma soo noqon kii labaad wuxuu ka koobiya 20 isagoo koobiya 20 ayuu kadinka ka baxay kii ku xigay isaga oo 19 ayuu kadinka ka baxay kii u dambeeyay isagoo 17 jira ayuu kadinka ka baxay dibna uguma soo noqon xataa salaana siday u baxeen warkooda ma hayso marka waa la garanayaa hooyada hadii la ka dhigo kalgacalka hooyada iyo sida marka dambe dadka ay dhashaa badiba ay ugu abaal gudaan in marka la muursaday cajil laga dhigay ee lagu tuntay ay dadka ay dhashay markay keligeed ku ay marka ay tahay iyadu qofka keligeed korinayo aan aabuhu joogin way ku dulburburtaayo hariyaabay way soo jeedaa yaraantooda maray wax siiso iyo maray ilaaliso iyo maray saxarada ka tirto tabadeedna xaqaa la malayn karayn oo cidi sheegi karayn oo la qiimeyn karayn ayay yeelataa marka hooyadaasi nasiib daradaasa ku dhacdo 4 wiil ay magacyada culculus ula baxday oo ay rajaynayso inay sidaa noqdaan mid waliba maalintuu shinkiisii gaadhay ayuu kadinka ka baxay dibna uguma soo noqon marka aqalkii waa iyada iyo aqalku waa keligeed waa aqal madow oo aan dhaqdhaqaaq ka jirin ilaa ubadku waa nuurka aqalku waa dam oo waa gudcur wixii nuuri lahaa way ka tageen aqalka madow bay dhex fadhidaa inamadii salaan iyo jawaab iyo kalaam iyo waray ka haysaa ma jiro halkaasay fadhidaa cad bay noqotay waa gabowdayo salaada dirqi bay ku tukataayo markay tukataba waa u ducaysaa in Ilaahay soo hadeeyo nabadeeda tabadna ninkaasi warkaas uu sheegay wuxuu hooyadaas halkaas ku kadeedan tahay tacabkaas soo maray goblan ma 4 wiil bay dhashay maanta 4 wiil waa ka goblano oo waqtigii dayna ka yar markuu shinkiisa gaaro tabeetana ay isla lumi jireen hablaha daadiisa hadii ay ka dhigo hooyada kale uu yeelan jiray weey marka inakii waxaan ku yiri may tusaysaa ninkii warka ii sheegay guriga may geynaysaa guriga waanu ballanay guriga baan tagnay maalin maalmaha ka mid ah koorto hore taanaan tegin dadka haweenka deriska ah ee meelaha ka dhadhow ay saqaameen waa ku dhaga hadlaano waxay yiraahdaan mar walba oo wiilashaadii xaq ka qabteen wiilashaadii maya oo yar waxay ku jawaabto karan mayso oo waxay diidaysaa ereyga oranaya ma arago ma joogaano waa kaasoo way tuureen oo way dayriyeen waa kaasoo weli iyaga bay asturaysaayoo heebtooda qalinaysaayoo kama jawaabto markay inamadaadii may
markii uu adkaysan weyday su-aasha maanta dabati la kulli warkaaga boqolkiiba boqol waa la hayaa maanta haddaba islaamahan dariska ah kugu laga hadlaya runta u sheeg markaa maanta daba shaahu kariso waa isugu yeer waxaad dhageysta madaxweyne la baxday wada sheegay afartii magacaad idin sheegay laakiin markii ay ka quusatay magacyada ka soo horjeeda oo xun bay u bixisay kay dumarkii shaahiye waxay ku yidhi dhageysta tib dhalay tib mooye dhalay madalooti dhalay sii muuqday aan waxba la sii muuqan dhalay goblan wiila lagu falaanahay bayt goblan wiilashii mahad iyo guuleed iyo la baxay imaka waa tib iyo mooye iyo madalooti iyo waxyaaba cajiiba oo dee maaragtay dee maaragtay waxaa ka keenay murugada marka waxaa tidhi ilmadeydii waa kuwaas halkaasay uga baxeen dib uma arkin hadday mahad ahaayeen iyo hadday guuleed ahaayeen iyo hadday asad ahaayeen maanta ima aha magacyadaasaan u bixiyey allihi hadduu leeyahay haddaba warkayga warkii u dambeeya idinka sii ilmadeydii mar dambe dee hayla soo hadal qaadina marka calaa kulli xaal ninkii baanu ballanay maantii dambaanu gurigeeni koortu hura kor casara islaantii oo gabowday oo aqalku waa damo daaqadu waa xiran yihiin oo dhaqdhaqaaq ma jiro nololi ma jirto islaantii way soo kacday oo albaabkii bay naga furtay ninka ila socday garanaysay meeshay keenay waanu fadhiisanay cabaar oo bal intaan hadalba bilaabin islaantii baanu bal maaragtay cabaar eegayo dhowreyo waalsi bal horta xaaladda ay ku sugan tahay hadalku ha dambeeyo korka bal hubi ilaa had iyo goor dareenka jira qofka wejigiisu ka muuqda iyo korkiisa marka markii dambaanu u gedbaxno loo afbaxay oo ninkii baa ku yidhi ninkan ma garanaysa maya bay ku tiri oo uu ii sheeg waxay tiri wuxuu ku yidhi ninka magacaale ma taqaano waxay tiri waan maqlay bay tiri waxaanu u soconno iyadu dee ma malayn kartee wuxuu yidhi ninkan dee warkuu helay oo inamadaadii ku dayriyeen oo ka dhaqaaqayn buu ayaa maaragtay warkaasuu helay kadibna bal wuxuu jeclaystay inuu ku yimaado ku arko oo afkaaga ka qaado inamadaadi inaad goblanka tahay mid waliba markuu baxay gabadh buu iska samaystay saaxiibadiisa oo da-diisa oo laysla lumay oo khalaas halkaasay marayaan waqtiga dee maaragtay dhalinyaradu ay dee fudayd baa iska jira dhalinyaranimadu fudayd bay leedahay waa marka ay balwadooda iyo hadii ay ka dhigo arrimahoodaas ay u baydhaan marka anigii baa wafaxo waxaan ku yidhi dee magacayga waa kaa ninku kuu sheegay anigu su-aal baan kuugu yimi ninkan war buu ii sheegay odhanaya inaad 4 wiil dhashay oo 4tii midna aanad maanta gacanta ku hayno mid waliba maalintii uu maalinkan maanta madaxana qaad noqday albaabka ka baxay islaantii way naxday waxaa ka nixiyey ilayn hoogaada meel walba warkaagu waa yaallaa oo ma ay jeclayn in dee maanta hooggeeda la ogaado marka waxaan ku yidhi soo ma jiraano barbaamse waxay tii haya waa jiraan maxaa jiro waxaa jira dee warkaasaan helo waxaa lay sheegay inaanad goblan ahayn inaad 4 inan dhasho 4tii midna maanta aad gacanta ku hayn siday u dhaqaale dib kuugu soo noqon xaqaagii ku siin ku soo salaamin xataa telefoonka kula soo hadlin marka arrintaas baan hubinayo waxaan siray hadday run tahay bal waxaad isku daydaa islaantaas sidii inamadeedaasi ugu soo noqon lahaayeen sababtoo way sii yaabto waxay tiri hooyo inamadeeda beed adigu soo celin karaysa waxaan isku dayayaa inaan sameeyo tab ay ku soo noqdaan way ogaatay marka intee la ogaaday arrinteeda waxay tiri waxaan ku yidhi waxay u qaadatay inaan ka hadlayo xoolo iyo waxaasoo waxay tiri hooyo dee waa ilaahay mahadiyo waan iska noolaho imaka wax badan bay iga degi maayaani iyagu ma jeclaa inaan arko oo ku ilduugsado oo dee ay cabaar agtay halka yimaadaan cabaar halkaa fadhiyaan intaasaaba dee aan ku noolaan lahaa marka waxaan ku yidhi calaa kulli xaal aan marka soo koobeen way iska dhacaan daradaas way dhacday lakin waxaan isku dayay namadaada inay kuu soo noqdaan haddana way sii abta waxay tiri oo sidee bay usoo noqonayaan waxaan idhi ulku soo kaxayn maaye markaa warka afkaaga ka qaado gabay baan tirinayaa maaso hal abuur baan maasaan tirinayaa
casharadaha lagu duubaya dadkaa la dhex geynaya maasadu way faafaysaa waa la dhegaysanayaa marka la dhegaysto mujtamacu wuu isweydiinayaa ciddan laga hadlay islaantan iyo wiilashan dabeetana gabaygu wuxuu sheegayaa sababta keentay gabaygan in islaantii ubadkeedii ay islaa yihiin dabeed markay taasi dhacdo inamadii waa la takoorayaa meel walba waxaa loonayaa waa la baranayaa horta waa la raadinayaa oo dadku saasuu leey war horta kuwan nin wuxuu dalbad inamada la sheegayo inuu arko markuu arkana mujtamaca meesha jooga wuu goynayaa wuxuu odhanayaa haddii abu mafrash yimaado si aadoo ku qayro si aadoo hadal waa balukaada adigu hadalba kuma furee yaa la odhanayaao waxaa laga suunaxaya ogaanaya in warkiisa lahayo dabeedna markay meel ay galaan waayaan ayay iyagu insha allahu tacaala anigu soo celin maayo ilaahay baa dee kusoo sakhiraye laakiin aniguna kaalin baan ka qaadanaya haddii ilaahay ka dhigo maaragtay ubadkaaga inay kuusoo xaq baad ku leedahay oo iyaga qudhooda halis bay ku jiraan mar haddii xaqii aad ku lahay daba socdo xaqa waalidka waliba ka hooyadu waa mid halisa waa mid halisa oo aan laga badbaadi karin marka xaq baad ku leedahay adigu waxaan u jeeday iyaga badbaadadooda iyo adiga badbaadadaadii masadaasan tirnaya dadkay gaadhaysa waa la isweydiinayaa marka la helo waa la goynayaa haddii la dulo gabayaa loo tirinaya waa la maagaya salaad way jeceshahay inamadeed inay soo noqdaan laakiin haddana waxay ka yar biyo diiday inay inamadeedii dacwad ku noqoto arrintaasi hadaba finally waxay tii barhooy waxaa dadku waxay meynayaan hunguri ku dilayee dee bal soo sameeyo bal hadda iga ilaali wixii haddii ay ka dhigo ay mashkalad iyo ceebi iga imanayso marka tiibaan ballan ka qaaday dabeedna maasadeen anuunbaa hooyadaa ayaan tiriyey maase kooban laakiin aada u culus ereyada ay islaantu aada u culus markaa dabadeedna cajalad baa lagu duubay marka hore way sii faaftay cajalada lagu duubay way faaftay meel walba way ka dhacday magaaladii London dabeedna warkii waa la iskala bixiyey dabeedna nimankii waa la bartay dabeedna nimadii oo dee xaragoona isqalluucinaya mid bafar soo galayo markuu dee si hadal baa loo dhageyso waxba aan noo sheegin annaga hooyadaa u sheeg waxda naga noo sheegayso laa xawla walaa quwata marin waliba inamadii waa ka xidhmay dabeedna waxa uu iska qadarantay waqti aan fogay badnayn ka bacdi inay afartii wada socdaa gurigii yimaadeen albaabkii garaaceen inay islaantii u yimaadeen sheeka ka yar horeysay waxaa la yidhi waddanka hindiya waxaa ka jiray inan ay hooyo dhashay oo aabahii dhintay oo aan ehel kale lahayn sheekadan meel ka soo gelaya yacni waa isagii hooyadii isagoo wakiilkiiyo kaasay ku tacabtay oo ku daashay oo haddana ay kale waa ku ildoogsataa dabeed markuu hana qaaday dee barbaarka noqday baa dareen kalaa gelayo hunguri baa gelayo hablaa gelayo oo gurigii saxaradiisa lagu maray wuu ka hawoonayaa oo meel gogol wanaagsan oo nadiif taal buu doonayaa oo waxa qaaq iska jira waxaas oo dhan marka inankii markuu hana qaad noqday ay maalmaha kamida gabadh bay isbarteen oo gabadhii buu aada u jeclaaday gabadh libaaxada u jeclaaday oo gabadhii buu yidhi markaa aynu isguursano gabadhii waxaan markaa iyada laga filayn oo aan looga fadhiyin bay la timi waxay tiri haddii aad doonayso inaynu isguursano horadoo hooyada wadnaheeda ii keen yacni waa isagay intixaamaysa isagay tijaabinaysa isagay balad hundo ogaanaysaa waxa uu yahay dee qolli qof malaha bani aadam oo karaamada ma yidhaahdeen hooyadii wadnaheedaan kuu keenay laakiin isaga wuxuu yidhi markii ay ku xidhay hooyadii wadnaheeda maba fakirinaya wuxuu yidhi mataasadii ku xidhay haa waa fulinaya waad la kaalay bay tiri inankii dee qof meel u caddaay meel ka madow siduu soo ordayay isla hooyadii u yimi hooyo sidii wax kale uga dhowraysay hooyo wadnahaaga ii soo bixi hooyadii way abtay way aamustay after some time waqti ka bacdi ay ku tiri hooyo wadnaha maxaad ku falaysaa wadnahayga dee wada cayaar ba iska moodayo ka yar warwareejisayo mar meel saato dee waa nin meel u caddahay halkaasi ka hooyo wadnahaan doonaya aqri dambe waxay tiri makaar baa wadnahaygaa doonaysaa maxaad ku falaysaa
gabadhaan jeclaaday ayaa igu xidhay wadnahaaga ka dhabaha wuxuu yidhi waa u dhaartay inay ka dhab tahay waxay ogaatay inaanay waxba dhalin ay goblan tahay ayay ogaatay markaa ifka isaga unbay u joogtaaye iyadu haddii lay ka dhigo ujeedo kale nolosha ka leedahay ma jirto marka waxay tii hooyo intay soo kacday oo midi soo qaatay ayay tiri halkaa jeexo wadnaa la soo bax wadnaa weli ma rumaysna dee in waxa ay run yihiin soo kacay halkaasuu ku dhuftay dabadeetna aduu wadnihiibu la soo baxay dibadda usoo saaro dabeed garkiibu jaray halkii bay ku dhacdo iyado halkii bay ku nafreesha halkii bay ku baxday wadnihii oo dhigsaa uga da-ayo ayuu la durduriyey speedkii iyo xooggii uu ku ordayey ayuu kufay intaanu gabadhii gaadhino dabeedna wadnihii halkaas oo kale ku duulayo dabeedna wadnihii baa la hadlayo wuxuu ku yidhi wadnihii hooyadii hooyo waxma ku gaadhin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun iyadoo dhimatay ayaa wadnaheedii hadlayo ay ka naxaysaa kufitaa yarba inay wax gaadheen isna waa ka wadnaheedii gabadha ka iibinaya aduu boorkii intuu iska tumay buu la durduriyo inantii meel fadhiday wuxuu yidhi iga qabo adiyadii inantii bay qabeen waxay ku tiri saas way ogtoobtay waa maxay waxba markaas dee waa wadnihii hooyada adii tirtay maalbasa way ogto waxay aragtay dee inaanu naf lahayn waxay waa dhegeyso waxaad yeeshaa sheekhallow kadinka ka bax dibna ha igu soo noqon yani ninkii saasuu hooyadiina u waayey gabadhii wadna u dhintay hooyadii u dilayna u waayey oo xaaladahaasaa dhacaa marka maaragtay xaqu waa caynka marka calaa kulli xaal islaantii waa loo inamadii waa u yimaadeen dabadeedna waa dul degeen dabadeetana wixii waajibaadku ahaa ee dib uga dhacay ee ay la baxsadeen ayay markan iyadoo cada hadii ilaahay ka dhigo maanta hareera fadhiisteenoo gurigii markaa iftiinka kusoo noqday iyaduna waxba ma rabta inay ku ildoogsato marba aragto bay doonayso markan waa cadow wax ka degayaaba ma jiraan laakiin afeefba iyo islaantu markii aan anigu warramay ay ii fasaxaysay inaan gabayga tiri waxay tiri barooy waxaad uniga ilaalisaa inamada inaanan hunguri ku dilayno maaragtay waxay shidaya ka dhigo gabaygan u soo baxay aanu hunguri ahayn waxaan idhi taasi ma jirto wallay kaa tahay ballankaasaan kaga yimi maasadaasaan tiriyey maasadii way faafto dadkao dhan bay gaadho dabeetna waatan keentay inay guriga inamadii kusoo noqdaan maasadi waxay odhanaysaa hunguri calaf baa xukumaa hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal waxay ka afeefanaysaa hunguriga ay tiri iga ilaali inaan hunguri ku maagay ayaan loo qaadan dadkana hidihiisa guud waa dhaqan umadu leedahay dadkana hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal xaqiyo halbuuxintiisa habboonkiiyo waalidkiisa hilbiyo ku arooridooda siduu uga hawl yaraysto halmaal laga yeeli maayo yacni tacabka laga soo maro iyo sida uu marka dambe wixii ku tabcay u ilaawo dee laga yeeli maayo ubadka laga yeeli maayo hawiyatu waxay og tahay inay gabdho samaysteen oo nin waliba gabadh la saaxiibayo uu gogol codsiifo halkaa ku badjeynayo ku qayalayo oo uu hooyo kale samaystay hawiyatu mashoy dhashayda ka daagacan haadiskaaga aada iga yeedhanayso barbaar hanaqaad ku leexday duciya habar qaadan waayey dhir iyo heeguu noqdaa hadhaysay dhulaa noqoondhe hoygii maran wiilashiisa haween dumar baa ka sheegta hablaha kacay baa u yeedha haldhaa jecel baa u qaybsan haldhaa waxaa la yihahdaa goriga ninka ah marka aada buu qurux badan yahay haldhaagu marka inanku markuu hana qaaday qurux la kaco dee mid sidiisa oo la da-ahoo dee quruxdaas jecel ayaan waayayno dee ay isla lumaan haldhaa jecel baa u qaybsan oo ka marorsata dadkii dhalay inaan hadlo maan sugaynin waa hooyo sadohahoo dadkii hore ah inaan hadlo maan sugaynin baxnaanana maan hor joogsan hubsiinana maan ilaawin hoggeed iyo xaajadayda dareenka haroosigiisa hugiisa inaan ka qaado hayaanka fogaaday baa leh maan jeclayn inaan hadlo laakiin maanta
يعني runta iga hadlisay ها وقيدي حاجة درينك هلوسي سوكي سنة كقضايا كفوقادي بالي ما كان إلا هي الكواي إلا هي الكواي نفتي ده حلال هالكيدة على الكيدة وحان هدوا هاي الشيبو هانتي لولا تاي دقيسو وقبل دو لا صاحبي وقبشا وتفاي كاليسا هانتي لولا تاي دقيسو هانتي لولا تاي دقيسو خوبان تاك تالا إذا كواب فرديا حدينا بادي ويه هذا بادي بوكوية هاي هالشي كوريسا وعيلان قفات هلا بساريتي وحي حسوساتي مركا وحي كالصومرين قفات هلا بساريتيسا daryeelka horseedadiisa dadaalada heensihiisa habeenna ka seexan weyday ku meel maray heegantaada markuu hagar kuu banneeyo daraarku haleeli waayo hortaada waxaa yimaada sidaad ugu heelanayde haraad iyo waa kalkiise hilaac baxayow dhagayso siday tala kaaga hoostay waxay ka dhigtay iyadoo haraad hayo haraad aada haraad u liidata oo areera hilaana bahal hilaaci وعدا كحيو أن قالي كرينو كسو عبي كرين هنا مدري إلا عكريك تيروب أي أبا أنت هاي وهرات أنت هذول لكن علي قالي كرين يمكن يتحيسا حتى تي مبتدى لهاي علو شو انتي كوهيسي علو شو انتي كوهيسي هيغو كبحنانين هاي هراتك انت هتشقيسي لبتيدو انتي كوهيسي انت هوري كفتيدا هوبيدا intaan dusha kuugu heesay intaan hanad kuugu yeedhay hawraaraha kugu ammaanay intaan hubin kuu xambaaray dartaa u hoggaansanaaday hadhuubada aan ku siiyey habniin adigoo ku diiday intaan hamba kuu daboolay hamuudiya gaajo qaatay adoo haqabeel ku seexday intaan hurdo kuu ilaaway ilaashi hareerahaaga honka ay xusuusinaysa hayaydana meershii shaale hidowga naftaa caloosan kalgacalka ay u qabto ka shaahinqanaysa goorba hanka ay waraysanaya talow hebelmeed ku foogan waxay ka aamusayda qalbigeeda oo inamadaadii ma hebelmeed aniya hirashaa isweynay higsiga nolosha adkaaday adduuniya hibsigiisa هنقول إذا كنت يعني وحيو نقول لها هنقول كي أي مرادة ما تقول قصر لها يرمضوا واحد لكن إمكا حما قبسن كرو هنقول كي أيها كمان هنقول إذا كنت وحنكوها جاج واي لأن كانت كوها جاج سنيدي هذو كهوين حقيقة قف كوجا هوين بنتيسة عدة كوها اللي يسموي هل يعني ماذا هذا الشيء هبوجي يدي رنتيسة ayaan halis ku tusayne intaan kugu hawla daalay intaan kugu hooda sheegtay intaan kugu hooda sheegtay intaan hebla kugu faanay hilaado fog bay lahayde inaan hafarkaaga qaato sidaad ku heshaa da'weyne adiga habigaaga mooy waa adigiyo caqligaaga habaaska inaad cadtoogto adoo hanadan ka doortay xaggayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo huqubaasi ku raadinaysa subxaan hibaaq xalan maada hayne hufnaanta dhibtii abuurtay dhibta yani quduxdaa cidda waxa ku yeelay dee tacabkaygiiye hufnaanta dhibtii abuurtay inaanay hadhayn yaqiinso hawaale adduunra baa og dadkuna kale hooda weeye hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadhow hoos iyo sare tii ku raacda anunba hooyadaaya halkaa markay maraysay ayay tidhi haddana waa hooye habaaska inaad cantuugto adoo hanadan ka doortay haddoo adinkii sidaa u galay habaaska inaad cantuugto adoo hanadan ka doortay hadhow iyo tii hadhow hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadhow hoos iyo sare tii ku raacda anubaa hooyada ama cirka tag ama dhulka tag laakiin hooyada ku dhashay waa adiga marka uma socoto hooyadaas hooyo kastoo dayacan iyo hooyo kastoo ubadkeedii aanay xaqeedii siin aabuhu macna ma laha hooyada waalidka runtii waa hooyada waxay u socotaa hooyo kastoo dayacan oo ubadkeeda
imaka waxay u dhacaysaa taasi dee waa sheekadaasi dhacday laakiin haddaba qaar kuwa sidaas ama sidaa ku dhowaa jire bal imaka casharada waxaynu ku tuubaynaa wixii arrintaa la xidhiidha sidaasee haddii ay ka dhigo maalinkan maanta maaragtay dee waddanka jooga dee inay xusuusiso hooyada waxay tahay wasalaamu calaykum.